madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad uga xumaaday si kululna u weeraray go'aankii maxkamadda gobolka Banaadir ay shalay ku sii deysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ciidanka dawladdu ka soo qabteen hoygiisa uu ku yaala magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya oo aaminsan inuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur yahay dambiile qaran isla markaana qayb weyn ka qaata dhibaatooyinka lagu hayo dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana damacsan waqtigan inuu dawladda meesha ka saaro ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay garsoorka dalka inuu u dhaqmo isla markaana uu ka tilabsado xil ilaalinta guud ee qaranka wuxuuna Farmaajo ugu baaqay xil ilaalintu inay go'aan adag ka soo saaraan arrinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu sii daayay. madaxweynaha Soomaaliya warqad ka soo baxday xafiiskiisa ayaa lagu tibaaxay in go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir uu yahay mid laaluush uu ka dambeeyay isla markaana Cabdiraxmaan uu iibsaday garsoorkii maxkamadda sidoo kalena maxkamaddu u dhacday cadaalad darro wuxuuna codsaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in go'aankaasi degdeg looga laabto. beelaha hiraab oo aad uga carooday xasuuqii ciidanka dawladda ay u geysteen hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo waliba isagoo dhaawac ah oo la soo qaaday xabsiga la dhigay lagu jirdilay sidoo kalena ay dhacday in lagu bahdilo hoygiisa magaalada Muqdisho. sidoo kale arrinta naxdinta leh oo Farmaajo iska indha tiray walina uu ku indha cad yahay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur mar kale xabsiga la dhigo waxay tahay in ciidanka dawladdu ay markay tageen hoygiisa ay xasuuqeen staafkii iyo waliba haweenay shaqaale ka ahayd hoyga xasuuqu kaliya inta kuma ekaan god qura ayaa lagu wada aasay ciidanka dawladda ayaana falkaasi sameynaya gabadhii iyo waliba wiilashii halkaasi ku sugnaa rag iyo dumar in la isla aasana xitaa argagixisada geeska Afrika laguma araga. arrinta naxdinta leh oo inta badan ka caraysisay beelaha hiraab habar gidriyaabgal ayaa ah in meydkii loo diiday in ay aastaan markii ay damceen inay dawladda la xiriireen loo sheegay in dawladdu god qura ay ku wada riday raggii iyo dumarkii lagu xasuuqay hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur isagoo dhaawacana xabsiga la dhigay ugu dambeynna lagu guuleystay in maxkamaddu ay sii dayso meeshii laga sugayay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu raaligelin ka bixiyana wuxuu yiri waa sharci darro in maxkamadda gobolka Banaadir ay sii dayso. wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya saacado ka hor isna uu shaaciyay inuu aad uga xun yahay maxkamaddii sii daysay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. labada mas'uul ee ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya Farmaajo iyo Khayre ayaa isku raacay in ay maxkamaddu si qalad ah u dhacday isla markaana la doonayo racfaanka u dalbaday xil ilaaliyaha qaranka in si degdeg ah loo ayido gobolka Banaadir maxkamadeedana ay ka codsanayso dawladda federaalka Soomaaliya inay ka noqoto go'aankii shalay loona sheego Cabdiraxmaan Cabdishakuur in dacwaddu wali ay taagan tahay. hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya iyo kii saacado ka hor ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka ayaa la yaab ku noqotay beelaha hiraab oo shalay u adkaysan la'aa dhibaatadii hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka dhacday halka wasiirka amniga raaligelin ka bixiyana madaxda sare ee dawladda federaalka ay leeyihiin wax qalada ma dhicin Cabdiraxmaan isaga ayaa qaa'id ah oo qaranka iibsanaya. wixii ku soo kordha go'aanka madaxda sare ee dawladda iyo waliba go'aankan ugubka ah ee Farmaajo ka soo yeeray waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda.